farxan qaroole waxa lagu bixiyay qarahu ku gadi jiray suuqa dhexdiisa dadku soo basaasi jiray dilalka qorshaysan dadku guryaha u raaci jiray soo dili jiray miinooyinka baabuurta ku xiri jiray marka waxa waa naf walba adduunkan waxay geysatay annaga waxaan nahay qoyskii General Galaal oo wiilkaada farxan qaroole uu gacantiisa ku dilay General Galaal oo 84 sano jiro Hotel Afrique January 31st 2021 marka adeer waxaan ku sheegayaa waxa tiri hadda videogaada ku sheegtay waxaan u maleynayaa tiri wiilkayga inuu dambi galin maxaa la ummadda Soomaaliyeed dadkii inuu qeyr kale dhinac kale wax ka siiyo dadkii oo asaga xiriir kala lahaay marka adeer waxaan ku sheegayaa ma qaano inaad god ku nooleed 5 sano oo wiilkaada intuu maxaa la shabaab ahaay markuu dawladda ku soo biiray asagoo maxaa la ciidanka booliiska Haramcad marka ilaa intaas wiilkaada inaadan ba ka warqabin ay ila tahay aniga sidaad maanta u hadlayso waxaad iska dhigaysaa inuu wiilkaada nin dambi weligiis galin inay tahay marka haddaadan ogeyn anaa ku sheegayo wiilkaada falan dambiyeed aad iyo aad u weyn oo uu sameeyay wiilkaadana waxa loo dilay waxa waaye wixii ikraan tahliil Allah u naxariistay loo dilay sakaaladii ay u dileen Faad Yaasiin iyo Farmaajo iyo rejiimkooda kula najiis iyo kulli maxaa gaangiskii oo Farmaajo rejiim sababtii loo dilay waxay ikraan tahliil Allah u naxariistay waxay ogeed sensitive cases haysay iyo sirta fal dambiyeedka oo maxaa la dhahaa ay wax ka ogeed marka sidayna sirti u sii deynin ayaa loo dilay gabadha miskiinta ahayd Allah u naxariisto marka wiilkana waxa loo dilay maadaama uu wadankii dawladda cusub timaaday inuu sirtii bixiyo marka waxaan ku sheegayaa waxaan u jeeday dad badan oo Soomaaliya oo qaylinaayo dhahayo dawladda Xasan Sheikh dishay Xasan Sheikh dawladdiisa dadku wax dila maaha ma fahamtay wiilkaadi waxa dilay waxa waaye shabaab disha lagu leeyahay laakiin waa la shaqoolay waa la dilay waxaana dilay waxa waa wixii horay dadku wax u dili jiray ma fahamtay waa dadkii afweyne rejiim oo waxa ku sheegay aabahay la soo shaqeeyay isa sadaqar u soo weerareen isaas Morgan iyo maxaa la dhahaa Ali Samatar iyo waxaasiyo ay rabeen inay qarijiyaan marka waxa waaye waa wax looga bartay afweyne rejiim wixii la soo shaqeeyo way dilaan marka tacticadaas waxa isticmaalo waa dadkaas marka waxaadan u dhihin markii la soo isticmaalay adeer waxaan rabaa inaan ku sheego wiilkaada waa ayga Farmaajo uu leeyahay ayga waxa lagu yaqaanaa meesha qabal yiraahdo aadaya oo maxaa la dhahaa soo ataagareenaya marka wiilkaada nin saas oo aqli badan ma ahayn marka waxa waa ayaan daro adigii dhamaayo dhalay inaad maanta meel la soo fariisato oo iska dhigto inuu wiilkaada wiil fiican ahaay oo ana oyso waxaan aniga meeshan u soo galay falcelinta uga sameynaa oo hintaadan la yaabay ma fahamtay yes aniga waan ooyay oo aniga marana emotional noqday aan naftirkay maxaa la yiraahdaa video soo duubay anigoo emotional waxaana u sameeyay saas waxay ahayd beeshaniya aabahay ka aamustay ma fahamtay videogaas waxaan ugu ooyay dilkii Farmaajo anaga geeri waan naqaanaa dhimasho waan naqaanaa waxa waa iimaan aan leenahay oo qadarka Ilaahay waan naqaanaa laakiin Ilaahay wuxuu kale too yiri cadaaladda wixii ku dulmiyay raadso oo maxaa la yiraahdaa cadaaladda laga siiyo sidaas darteedan waxaan rabnaa inaan maxaa la yiraahdaa aan sharciga hormarino sharciga horkeeno wixii gacan ku dhigliyaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaay especially Haramcad taliye xijaar oo wato iyo wiilkaada marka intaas kaliya kuma ekeen adeer wiilkaada waxa waaye wuxuu sameeyay jiray dilalka qorshaysan oo waxa loo haystaa Cabdicasiis Afrika dilkiisii waxa loo haystaa dilal kale oo badan oo saldhigii booliiska waa bari oo taliyihii checkpointska oo lagu dilay maxaa la dhahaa December 20 maxaa la May 27 Ramadaankii hore 2021 oo lagu dilay maxaa la yiraahdaa saldhiga booliiska intuu farxan qarool isugu yeeray oo cadeynteedii raqabkeedii lahaayo waan soo gelinay fal dambiyeedka oo farxan qarool la sameeyay oo waliba taliyahaas qaraxii uu ka badbaaday covid jiray waagaas oo waxa la soo ogaaday inuu farxan qarool ila isbitaalka u dabagalay oo oxygen-ta ka siiyay taliyahaas oo haddana bireeyay sida xayawaanka u bireeyay marka adeer waxaan ku sheegaa wiilkaada wuxuu ahaa fircoonkii Soomaaliya loo soo diray fircoonkii Nabi Muuse oo waagi Nabi Muuse oo dumarka oo maxaa la yiraahdaa wiilasha dili jiray wiilasha oo maxaa la yiraahdaa Nabi Muuse dadkiisa leen jiray gabdhahana sii deyn jiray marka wiilkaada teeda kale inta waa nin fulay waaye oo argagixisa iyo wuxuu ku qaraabtaa ruumasho iyo sidii argagixisada lagu yaqaan wiilkaada waa al-shabaab adeer waan ogtahay wiilkaada inuu shabaab ahaay farxan qaroole waxa lagu bixiyay qarahu ku gadi jiray suuqa dhexdiisa dadku soo basaasi jiray dilalka qorshaysan dadku guryaha u raaci jiray soo dili jiray miinooyinka baabuurta ku xiri jiray marka waxa waa naf walba adduunkan waxay geysatay leedahay marka maanta inuu wixii asaga uu ka shaqeynaayo lagu dilo
وواح أو أسرع ومتيستوى إلى هي عدالة الناس مثلا كلام تربينا كوش ياجو لبس سنة almost 2 years أيان دعي سنيني Soomaaliya ku soo soconay ama waxaan rabnay inaan cadaaladda hor saarno oo cadeymaha aan ku hayno wiilkaada aan maxkamadda u soo bandhigno marka alxamdulillah ilaahay ducadii naga aqbalay oo ilaahay adduunka ka waday ma fahanto qaraxii oo dadka ku dili jiray ilaahay dhadhansiiyay oo ku dilay asaga marka waxaan ku sheegayaa adeerow wiilkaada waxa waaye fircoon oo fircoonkii Soomaaliya ومورغانكي سوماليا وحواي مورغانكي باشا هوية هبر قدر شيغانيسين ويل كذا خاصة ما كليا كلا تربينا نقول شيغو باشا هوية كلي جدو دلجري محد وقع علي ويسا داد ويل كذا ساس وجعشاي محد موريانيما انت تكجارت اديغو موريانيما ماشا انيغا مانتا كوغو مديغانايو لكن رونتا كو شيغا رونتا دي لوغو شيغا دي ديغشان نقطه سو بيت ما فهمت لكن waxaan ku sheegayaa wiilkaada wuxuu sameyn jiray adeer dilalka qorsheysan wuxuuna beegsan jiray باشا هوية بس رحوين مدري جرين باشا دارد مدري جرين ريوقويق مدري جرين وصومالي جوي دفتي وحاسي مدري جرين مركا inaad wiilkaas maanta aad sheegato oo maanta la yiraahdo baashi hawiyo oo wax magaratadana ay u soo heeliyaan wiilkaada waxa maxaa yiraahdaa u heelinayo maanta oo cabaadka ka yeerayo oo dawladda xasan sheekh ku eedeynayo waxa waaye baasha daarood ma fahamtay ayaan daray ku tahay inaad adigoo habar gidir sheeganaysid oo waliba reexaji Saleeman dulmiga general galaalka galena waxay taa gurigeena shir kale xoog ku haystaan reexaji Saleeman waxa kale inta ku sheegaya wiilasha cayr waxa ka baa ku duugay oo dilay halkii la dhahay maxaa la dhahaa farxaan wiilka la dhahay Cabdicasiis Afrika wiilkaada oo ahay iyo kii kale inta la dhahay Saadiq John maxay xilal ku heleen wiilkaada general adeer saas lagu ma noqdo wiilkaada general ma aha general waxa generalnimada looga dhigay waa inuu dadkiisa xasuuqo marka waxa waaye maxaa la yiraahdaa ayaan daro inaad maanta aad la qiirootid aad la oysid oo hintaan oo hina ka horeysay teeda kale inta waxa waaye maxaad la oynaysaa because ilaahay yaa ku duleeyay ilaahay yaa saas ku galay because waxa waaye waxaad geysatay waaye ma fahamtay waxaad mutaysatay maanta inaad adigoo oday weyn oo 80 jir TV-ga soo hor maxaa la saxaafadda soo hor istaagtid oo oysid qalad ay kugu tahay yaad u oynaysaa dilka wiilkaada waa lagu farxay nimanka janaasada ku dukanayo kulligood majority-gooda waa ku farxeen intaan madaxweyne xasan sheekh ahayn ma fahamtay waa lagu wada farxay umadiyo halaagay argagixisoo ahay beesha caalamkaana la shaqeynayso dawladda xasan sheekh kalina baa la sameynaya farmaajo regime wuxuu ka tagay oo argagixisada leh beesha caalamka raadsanayso